الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وولاشين جوار حسين halkan nagala socotaan waa channelkeena Jawaar Xuseen inuu maamusho waxaan rajeynaa inaa caafimaad qabtaan sida aniga aan caafimaad qabo. Allah subhanahu wa ta'ala caafimaadka ha inoo ziyaadiyo. Allah subhanahu wa ta'ala inta xanuun sariir la saaran Allah subhanahu wa ta'ala xanuunka ha ka dulqaado xanuunkooda caafimaad taam ah ugu bedelo dambi dhaafna ha ugu dhigo. gabdho badan waxay soo dhaheen muraad leenahay asxaabtaada ducana weydii Allah subhanahu wa ta'ala muraadkiina oo macsileen ha idin sahlo. Allah subhanahu wa ta'ala sida jeceshiina firdaws al-a'la ugu horeyso ha idin yeelo. Allah subhanahu wa ta'ala gabar yar cunug yar waxaa jiro gabara oo WhatsApp iga la soo hadashay walaasheeda dhashay ka xanuunsan. Allah subhanahu wa ta'ala ha caafiyo. Allah subhanahu wa ta'ala ha idin caafiyo nuunaha yarka ah aamin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala inta murugada hayso murugada ha ka dulqaado xanuunkooda farxad murugadooda farxad ha ugu bedelo. Allah subhanahu wa ta'ala inta xamalka la daala dhacayso Allah subhanahu wa ta'ala afar indhooda isjecel ha ka dhigo. Allah subhanahu wa ta'ala intaan shaqada haysan shaqo wanaagsan ha siiyo, intaan guurka haysan guur xalaal ha siiyo oo wanaagsan, inta aan ubadka haysan ubad baari ha ku arsaaqo, inta ubadkooda ka maqan Allah subhanahu wa ta'ala laabtooda ha ku soo celiyo. Allah subhanahu wa ta'ala inta murugaysan inta dhibaataysan inta xanuunsan Allah subhanahu wa ta'ala ducada ha u aqbalo aamin ya rabbal alamin. ilaahay firdaws al-a'la ha noogu kulmiyo dalkeena Allah subhanahu wa ta'ala nabad ha noogu dhigo aamin ya rabbal alamin. qisada maanta noo hayo marka qisadan aan aqrinay runtii aada u qiirooday subhanallah. waxaan ka sheekeynayso gabadhi qisadan ku dhacday ka sheekeynayso abaayo waxay leedahay sida gabdhaha caadiga ahba maalin waxaan kuriyoon jiray in aan fustaanka ama saakada cad oo arooska la ii geliyo maalin aan taashka la ii xiro oo nin aan jeclahay waliba i guursanayo weligayba kuriyoon jiro dhahday aroos walba aad runtii maalinteeda iska soo xasuusana maalinteeda iska niyeysana anigoona waxba gacanta ku haynin. falxamdulillah ilaahay subxaanahu wa tacaala riyadeydu way ii rumeeyay dhahday alxamdulillah waxaa isoo doontay wiil aad u wanaagsan akhlaaqdiisa diintiisa wax walba maasha Allah tabaaraka raxmaan. anigana waxaan ahay dhahday gabar xijaaban oo maasha Allah tabaaraka raxmaan ilaahay subxaanahu wa tacaala qurux siiyey, ilaahay subxaanahu wa tacaala akhlaaq u dhaliyay, waalidkeeda akhlaaq kusoo barbaariyay dhahday siiba hooyadeeda aabeeygu waa dhintay dhahday Allah subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto. hooyaday akhlaaq qurux badan ay ugu soo barbaarisay dhahday oo nin walba ay arkaba markaas i diideynin. wiilkan runtii waxay dhahday wiilka aad u iiga hel an sidoo kale akhlaaqdiisa gabar aad u qur'aan akhris badanna waa ahay dhahday aad salaadeeda waqtigeeda dukatay dhahday alxamdulillah. wiilkii waa isguursanay dhahday alxamdulillah maalinteedii waa la gaaray saakada cad waa xirtay si qurux badan la ii guursaday dhahday maasha Allah tabaaraka raxmaan. wiilkii wuxuu i geystay dhahday gurigiisoo i geystay falxamdulillah nolol qurux badan ku dhaqmeynay dhahday. intuu maqan yahay waxa u diyaarnaa cuntadiisa sida caadada ahayd oo gabadha laga rabo waxay dhahday maasha Allah wax walbo diyaar salaadeed waqtigeeda dukaday dhahday. qur'aankaygu waa akhristaa dabcan gabar walba way rajaysaa maasha Allah noloshaas quruxda badan inay gasho. fa waxay dhahday ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu igu arsaaqay gabaru ilaahay subxaanahu wa ta'ala igu arsaaqay dhahday. falxamdulillah gabadheedu way soo kortay dhahday da'deeda 3 jir meelahaas ay soo gaartay. markay meelahaas soo gaartay ilaahay subxaanahu wa ta'ala haddana wuxuu i siiyay dhahday wiil oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala i siiyay. marka Allah musta'an intaan wiilka dhalna waxaan dhahday ninkayga computer marka waxaa jirtay dhahday macallimad oo gabadheedu u iimaanaysa oo waxba barayso computer wadata ay dhahday. macallimadii waxaan ka arkay computerkii iyo social media sida uu isticmaalayso iyo sida ay gabadheeda casharka ugu siinayso. markaas waxaan weydiiyay ninkayga inuu computer ii keeno. markaas wuxuu igu yiri maya computer hadda ma ku keenayo waxaas fasahaad waaye iska dhaaf gurigu ka mashquulina. runtii waxay dhahday ihtimaam ma siinin laakiin waa jeclaa aada u jeclaa. falxamdulillah wiilkaygu ilaahay subxaanahu wa tacaala i siiyey dhahday wiilaa dhalay. wiil markaa dhalay xoogaa markaa kasoo wareegto oo ninkayga aan dhahay isii casharaa ka qaadana waxaan dhahay wuu ii keenay ama cunugtan wax ku baraya computer ii keeno dhahday guriga ii soo dhigay. computerkii yareed in la ii keenay dhahday way fiicnaan lahayd computerkii in la ii keenin
waxay dhahday computerkii social media midba miduu ii dhiiba ay dhahday midba miduu ii dhiiba intaa ka baxaa kana gala intaa ka baxaa kana bala waxaa galay dhahday groupyo la isku barto groupyadii sida ugu jiray waxay dhahday waqtiga iga dhamaanay heer waxaan bilaabay salaadii kiskis ugu tago aan isku soo dardaro mar aan ka tago cunugayga mar asoo ooynay waa ka aamusay dhahday ninkayga shaqadiisana waxay ahayd dhahday shaqo aad u dhib badan shaqadii uu ku soo daahay dhahday waxa uu imaanaya anigoo waxba u karin wax cunta u diyaarinin waxba aan u sameynin oo mas'uuliyadii dhanba aan gabay sida computerka ugu jiro fa subhanallah ilmihii xitaa ihtimaam ma siina ninkii sida saaka guriga ugu tago ugu soo noqonay dhahday wuxuu dhahay maxaa kugu dhacay maxaa qaldan maxaa waa sidii hore ma tihide maxaase oo caadi waan dhahay weligay codkayga kor ugu ma qaadanay dhahda ninkayga marka waxaa keenay inaan oo codkayga kor ugu qaado macnaha aan ku qayliyo marka wax i weydiiyo maxaa kugu dhaco idho fa subhanallah waxay sidaas ku socoto waxay dhahday amuurtii waxaan bartay dhahday wiil waxaan ka bartay meeshaas aan ka bartay dhahday aan ku jiray wiilkii waxay dhahday sheeko caadi aan iska keeni dhiibaysay sheeko caadi magacaaga heblaay xagee ku nooshahay xagee degan tahay meeqsanaa jirtaa inta ka dhac waxay dhahday waxay iskayna dhiibtaba sheekadeena waxay gaartay haayay gaartay haay markay gaartay wiilkii waxaan dareemay dhahday inaan jeclaaday inaan mar walba rabo inaan la hadlo mar walba in aan la sheekaysto inaan u baahanahay mar walba qoraaladiisa waxay dhahday wooyi amaana runtii gabar qurux soona i arkin runtii waxaa tahay gabar oo saan gabar inta ka dhac runtii waxaa tahay gabar hadal gaaban weligay noocaaga ma arkin ma waa u sheegay dhahday in lay qabo maca daalik waxay dhahday waa ka xumahay in xiriirkeena si fiican aan u wadan karin maadaama gabar la qaba ahay waxa ma aha waa inta iskaaga sheekaysanayna nin marba haddii adoo waa lay qaba dhahday waxba ma aha inta waa iska sheekaysanayna hadduu ku dhaho kaas iskaaga orod iskaaga roor kaas talo kuuma soo wada ma fahmaysaa fa subhanallah marka waxay dhahday sidii arintii sheekaba sheekaynuu dhiibaysay waxaan ka dalbada waxay dhahday waxaa dareemay inaan jacayl u qaaday wiilkii ilmihii aan kala jecleen hadday ooynayaan haddii kale aan kala jecleenba subhanallah ninkayga heeruu ila yaabay maxaa kaa qaldan oo i dhahay maxaa siyaa kaa waxaan iska daa marka uu soo galay ninkayga ka inuu inaan computer isticmaalayna iska dhigaa dhahay oo ma oga waxaan ku mashquulsanahay laakiin wuxuu leeyahay maxaa kaa qaldan maxaa ku daaray heblaayay maxaa kaa qaldan ana waxaan leeyahay maxaa iga qaldanaan lahaa waa ku qaylinaya dhahday marka uu saas i dhahabo wax uu iga markaas xaggiisa liiditaan aan ka arkayna ma jirtay dhahday oo beelkii ha dhihin mas'uuliyadda guriga ha dhihin wax walba sidaan rabay igu socdaan dhahday shaydaan baa igu dhex dabaalanayo fa waxaa dhacday dhahday subhanallah maalin maalmaha kamid waxaan ka codsaday wiilkii inuu sawirkiisa iisoo diray maa axlaa quruxda sidaan rabi waaye dhahday indhihii hadday noqdaan sankii haddoo noqdo timihii balambaalisku ilkihii kuu simanoo cad yacni adduunkii dhan sidaan rabi uu noqday dhahday fa subxaanallah maalin ma arki doontaa niyadii iga gashay kan maalin ma arki doontaa fa waxay dhahday waxaan isku dayabo dabcan gurigayga joogaa ma awoodi karo inaan baxo waayo sida la iisoo guursado meelba ma aaday dhahday ninkayga wax walbuu isiiya wax walbuu ii keena wax walba dalabaada iigu imaadaan maba bixiyay dhahday meelba ma aadibo fa waxaa dhacday markaa ninkayga in shaqo oo xoogaa magaaladiisa aan degannahay magaalo ka baxsan in shaqo allah mustacaan loogu soo sheego oo 3 maalmood uu ku maqnaanayo wuxuu yiri dhageyso aan shaqaa isoo gashay shaqadaasaan ku maqnaanaa marka sidaas darteeda inta makaaga tagayay guriga hooyadaan ku geynaa wuu isoo waday dhahday aniga labadeeda caruur wuxuuna keenay guriga hooyadeeduna keenay wuu baxay fa subhanallah farxad iima dhinay ku dhahday farxad tan ugu dambeysay amara aniga guriga hooyadeeda hadii la keenay ilaan hadda ay guriga hooyadeed waa la keenaa waxay soo joogaa waa soo noqonaa jaaniskaas ameel ku aadi kara ma haysti fa 3 maalmood jaanis haystaa maantaba fa waxay dhahday maalin maalmaha kamid waxaan dhahay hooy miyaha ilmaha ii fiiri suuqa meeshana wax ka soo gadanaa hayay dhahday hooyaday waa baxay suuqi markaa aad meel istaagay telefoonkeyga soo baxsaday mise asiga wacay nambarkiisa wuu ii soo diray asiga wacay waa markii ugu horeysay aan wacayo anigu waay heblaayo waay
meeshaasaa taaganahay inaa ii imaadid aan is aragnaa rabaa. waxay dhahday xoogaa waxaa meesha taagnaadaba waxaa meesha soo istaagay gaarihe ayaabaysid se u yaalabo bismillaah quruxda. waxay dhahday gaarigii muraayadiisa la ii dejiyey haysee tahay misna waa qofkii sawirkii nafsi shagligii waaye dhahday subxaan allah. soo bax meelahana kusoo sheekaysanayna jag gaarigiyaa u raacay dhahday. gaarigii wuxuu dhahay meelahana ku wareegaynaa meelaha iska fariisanaynaa kafee iyo waxaasaa iska cabaynaa. haye anigii waxay dhahday waa ka kala batay waahay ka kala batay subxaan allah. waxay dhahday gaarigii wuxuu socdo waxaa tagnay oo dhahay ay dhahday meel oo geedageeda guri oo yaroo ku yaalo oo qurux badan. gaarigii markaan ka degay 3 nin waxay dhahday subxaan allah garbaduuble la ii qabtay 3 nin. waxay umalaysa in meesha diyaar ugu ahaayeen. garbaduub baa la ii qabtay asigiyaa soo degay nimankaan iga celi maxaa waaye markaan dhahay yaa gabadha u tartiibna si xoog ha u qabanina tartiib jees oo saas ku dhahay. aniga waxay dhahday markaas waxaan is dhahay maalinta aad dhiman laheed waaye ilaahay ha kuu gargaaro wax walbana adiga isku keenee yaa wax walba adiga isku keenanay maanta ilaahay ha kuu gargaaro war ilaahay ka cabsada. waxaan dhahaba waxay dhahday meesha waxa laygaga soo dhigay dhahday 4toodii waxay ii soo reebteen malahan kii aan aaminay iyo 3dii kaloo meesha joogay. fa subxaan allah waxay dhahday allahu mustacaan isla gaarigii igu soo celiyey meesha iga qaaday oo i dhigay dhahday. yaan u sheegi karaa anigaa lugahaygu ku tagay maxaan dhihi karaa dhahday. yaan weyshtakuun karaa yaan u araaran karaa yaan u dacwoon karaa cidna. waa soo baxay dhahday gurigeena imaaday saa u soo socday qolkayga galay dhahday anigoo ooynayo oohinta waxay dhahday oohinta si aan xad ka bax ahayn si xad ka bax ah ooynayo dhahday xad ka bax cunugeygii yarka ahaa oo 2 jirka meelahaas iska ahaa ay soo garguurtay dhahday albaabka ay soo galay maami oo dhahay habo isi gabadheeda ay imaad hab ay siisay inay og yihiin idareemayaan oo kale. waxay dhahday aan hab intaan siiya iska ooyay dhahday iska ooy hooyada ay soo gashay maxaa kugu dhacay maxaa ka qaldan waxba ma iga qaldan hooyo waa fiicanahay caadiya ahay aan dhahay. ninkeygii safarka ka imaaday ninkeygii markuu safarka ka imaaday waxay dhahday ninkeygii indhaha waa u dhameyn waay waxaan ku sameeyay indhaha waa u dhameyn waay dhahday maxaan sameyn karaa. waxay dhahday waxaa igu dhacday sidmaa igu dhacday allah mustacaan casabkiya wuxuu noqday dhahday ziyaado isbitaalkiya lay jiifiyey isbitaalkiya maalmo ku jiray dhahday markaa ka soo baxay ninkeyga waxaan ka dalbaday furiinaa ka dalbaday dhahday waayo ninka sidaas u wanaagsan aan khiyaanadaas ku sameeyey aan sidaas ku sameeyey ma rabi inaan la noolaaday dhahday ma rabi inaan la noolaado. waxay dhahday hadda qisada aan soo gudbinayo ilintii iga daadanaysay dhahday ilaa hadda 1 sano miyaa ka soo wareegatay dhahday ninkeygan waxaan ka dalbanayo furiin asigana wuxuu leeyahay ma ku furaay caruurteeda hooyadeeda tahay ma rabo caruurteedii inay anagoo kala fog ay koraan markaas darteeda ma ku furaay wax xardid sameey ma ku furaay ilaahay anna ma rabo waxaasna ma rabo inaan u sheego dhibkaasna waa igu dhacay ninkaasna haddii aan la noolaanayo waxay noqonaysaa inaan qiyaamay marka sidaas darteeda waxay dhahday waxaan ku qasbanahay inaan nafteeda waxaan ku qasbay dhahday inaan ninkaas iska furo. waxay dhahday gabarey iska ilaaliya dhahday inaan ninaas ka raacdid wallaahi qisadan wax badan kala bixi doonaa wax badan aniga waxaan qabaa ninka haddaadan waxba kugu qanacsaneen intaa qiyaani lahayd ifurdhe walaalow macaano ani kuguma qanacsani noloshaada kuma qanacsani kula noolaanshahaaga kuma qanacsani gogoshaada kuma qanacsani iska kayfur. markaas maxaa idhahdaa asi ninka aragtid guurso adig ku taala laakiin ninkaagu ku qabo in damaaca aan noqotid oo nin kale la sheekeysatid waliba la haasawd waliba guriyaha ugu tagtid la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim والعياذ بالله لو ذي مالك وكليودنا هذا أو شيطان وصوت تاجين يسدحوا يهم فهمت شيطان ونينك أو معالم كأها أو نينك عالم كأها سبحان الله أو جارسي إنه زينيستو أو عنق زينو كله ولا بعنق جديله ولا بأقينا شيطان كسجوده يعني سبحان الله ناركم متستوى عجيب
والعياذ بالله الله سبحانه وتعالى هنا وكريو إلهي سبحانه وتعالى ذنبين ذنب والدكين هذا فرنتي قصوين كقار ويكوتها بنايان قصوين كقار سبحان الله وحيكو قبنايان هنا جورزنين نينا هلا هضلين فاهمين لأنه وحيابها قار وعجيب عبرو تن قدام بيس يكون قنايا فاهمين marka ilaahay qeyrkaana soo waafajiyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala kuwa dhowrsoon hanaga dhigo ilaahay subxaanahu wa ta'ala kuwa naftooda dhowra hanaga dhigo ilaahay subxaanahu wa ta'ala kuwa zawjkooda hadii ay guursadaan zawjkooda mar walba la tashto walaal waalid wax walba iska dhigta Allah subxaanahu wa ta'ala hanaga dhigo aamiin ya rabbil caalamiin adinkana ragow gabdhaha la sheekaysta gabdhaha cidlaha dareensiinina gabdhaha la sheekaysta gabdhaha la haasaabo markaa qabtiin ma ahan ina biilka dhud meesha aad ku siisaan subaxii soo toostaan sariirtaas aad seexataan subaxiina ka soo toostaan no ma wanaagsan la sheekaysta gabdhaha waqti la qaata fadfada gudihiina banaanka soo saara inta niman ala sheekaysan lahayd ayaga la sheekaysta leeno markay maliyana naftu ku qasbayso inay qof kale la sheekaystaan marka ma fahmaya ninkaaga ka keen kasoo saxabi kalaamka ama kasoo bixi ma garano anaga ma fahmaysid marka isku daya ina gabdhaha hadalka kasoo saartaan adinkana gudihiina soo saartaan oo sheekaysaan ilaahay qeyrkaan waafajiyo walaashin Jawaar Xuseen oo idin la ku soo dhawaada channelkeena waxa idin ku codsanayaa ina subscribe asartaan asxaabtiina la wadaagtaan wixii ra'yigiina comment aw ku reebtaan like tan dhiirgelinayo tahay in like noo saartaan qeyr caafimaad iyo barwaaqo idin rajayna assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh